walaal ma doonayo in aan waqti badan ka cuno maxaa yeelay filimka aad buu u macaan yahay. Waxaan kaliya kaa codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horreysay walaal aad halkan soo booqato King Sulphur Bro, waxaan kaa codsanayaa walaal subscribe garay maxaa yeelay waa bilaash. Wax hal sakan ka yarna way kugu qaadanaysaa. Haddii aad tahay walaal horay inoola joogay waad mahadsan tahay walaal, laakiin laagta hanaga ilaawin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Anigu waxaan ahay King Sulphur, waxaad iga daawanaysaan King Sulphur Bro. King Sulphur Pro. waayahay asxaabtayda qaaliga ah, isku soo noqosho wanaagsan. Filimka ayaa wuxuu ku bilaabanayaa gaari wada saaran yihiin 6 dhalinyaro ah. Gaariga ayaa waxa ka qarxaysa lugta, kadib waxa uu sababayaa mid ka mid ah gabdhaha in markaa iyadahay madax dhaawac uu kasoo gaaro. Gruubka ayaa wuxuu ka kooban yahay 3 wiil iyo 3 gabdhood. Gabadhan waxaa lagu magacaabaa Sarah, hal gabadha kale gabadha caawineed lagu magacaabo Karen, hal gabadha dhaawac gaar lagu magacaabo Jory. Dhanka wiilasha, wiilkan waxaa lagu magacaabaa Jeff, halka wiilkan lagu magacaabo Todd, halka kan shaarka cad lagu magacaabo Eric. Saaxiibadan nafta ay u dhaxayso ayaa waxay soo wada aadeen gabadha la yiraahdo Jody, walaasheed oo ay dhalashadeedu tahay. Laakiin saaxiibadan waxaysan war u haynin wadadan inaysan gawaaridu isticmaalin muddo badan. Waxay durba si degdeg ah ku gudagalayaan in ay bedelaan taayirkii qarxay. Waxay u jirtaa magaalada u socdaan kaliya 3 mayl, taana wax walwala kuma hayso. Sarah ayaa telefoonkeeda gacanta selfie isaga qaadayso si ay maalintan ay u noqoto xasuus, isla markaana waxay doonaysaa in hadeerba ay boosto garayso, balse waxaa dhibaya network. Sarah ayaa wax isku dayi doontaa inay xoogaa fogaato si ay qad u hesho, balse way ku guuldaraysanaysaa Sarah. Karen iyo Jory ayaa baabuurka gadaashiisa ku nasanay maadaama ay qoraxdu aad u kululayd. Sidoo kale dhankiisa Eric ayaa u baahanaya inuu kaadi u aado dhanka iyo duurka. Todd oo yara daalay ayaa gabdhaha iska soo ag fadhiisanaya. Jeff oo ah wiilka ugu shaqada badan ayaa keligii bedelaya lugta, balse waxaa si lama filaan ah ugu dhaqaaqaya lugta. Isagoo lugta daba cararaya ayaa waxaa mar kale si lama filaan ah ku arkaya rasaas. Ka saaxiibadii ay aad u mashquulsan yihiin, sidoo kale Ericna uu ku maqan yahay kaadi. Todd ayaa wuxuu arkayaa lugta oo laamiga cararayso. Todd ayaa isku dayaya lugta inuu soo qabto. Sarah oo weli la daala dhacaysa network ayaa waxay si lama filaan ah ku arkaysaa Jeff oo geeriyooday. Sarah aad bay u naxaysaa, hataa afkeedu hal eray waa uu soo qaban weynayaa. Todd oo aan la socon waxa dhacaya ayaa goobta soo gaaraya, balse Sarah gacanteedu dhiig ayaa ka socda. Lama garanayo cidda xabadda ku dhifatay. Gabdhaha oo aad u yaaban xaaladuna cakiran tahay ay Sarah gacanta u soo taaganaysaa, balse isheedu waxaa ku dhacaya xabad ay wada arkayeen sida ay uga dhacday. Halkaas ayay ku nafweynaysaa iyagoo aad u yaaban, isla markaana isweydiinaya xaggii xabadda ka timid. Ayaa waxay ku hoos cararayaan gaariga, balse Todd oo meesha ka fogaa ayaa isku dayay inuu isagana gaariga ku hoos cararo, balse xabadda garabka ka dhacaysa. Dhanka kale Eric ayaa waxay ku adkaanaysaa inuu saaxiibadii soo gaaro, balse geed u dhowaa ayuu isaguna ku hoos cararayaa. Todd ayaa ugu dambeyn isagoo dhiig baxaya soo gaaraya saaxiibadii. Ma jirin saaxiibadan qof ku fikirayo inuu xaaladan gali doono, balse waa iska caddahay sababta baabuurka lugta ka qarxisay inay ahayd xabad uu ku dhuftay shootarka. Karen oo ahayd gabar u dhalay aaba military ah ayaa waxay ogaanaysaa in shootarku uu ka fog yahay halka ay joogaan maadaama gaariga aysan kasoo baxayn rasaasto. Todd aad buu u dhiig baxayaa garabkiisa bidix, dabcan waana uu sii nuglaanayaa. Halka Eric uusan saaxiibadii u imaan karin maadaama xabad ku dhacayso hadduu dhankaas oo eego. Laakiin saaxiibadan marba qof walba fikir ayuu keenayaa, laakiin ma jiro fikir marka ay ku dhaqaaqi karaan. Dabcan waxay raadinayaan sidii halkaan nolol ugu bixi lahaayeen. Aad bay xaaladdu uga cakiran tahay, jawigan wuu adag yahay. Todd ayaa dhankan kale usoo wareegsanaya si uu ugu fiiriyo network. Waxay iyagu qorsheynayaan in ay wacaan 911 si ay u suurta gasho in boolisku uu warkooda gaaro, balse nasiib darro shootarka ayaa markiiba madaxa qaadayo telefoonka. Kan waxay isku dayaan qorshaha xiga. Wuxuu doonayaa Todd in uu baabuurku ka dhiga neutral si uu ugu fududaado inay gadaal u riixaan baabuurka, weliba dhanka iyo dhanka network ah. Karen ayaa si uma weelisa shootarka waxay sameynaysaa qof mala awaal ah. Toddna uu u helo fursad uu gaari ku galo, isla markiiba shootarkii ayaa waxa uu
ku dhufanayaa xabadda qofkii meel awaalka ahaa. Tad ayaa durbadiiba gaariga galaya si uu neutral ugu dhigo. Balse nasiib darro, shootarka ayaa wuxuu ogaanayaa ciyaartay la ciyaarayeen, wuxuu xabadaha kaga qaadayaa Tad. Tadna uma suurtagelayso inuu baabuurka ka dhigo neutral. Chadi ayaa waxay taraagaraynaysaa halka shootarka uu joogo, waxayna ogaanaysaa shootarka inuu joogo geedka weyn ee wadada dhankeeda xiga. Ma jirtaa cid og shootarka xilliga uu halkan yimid, balse waxaan ognahay in shootarka uu halkaa kusii jiray ka hor baabuurka intuusan halkan iman. Tada ayaa markaan la yimid qorshihii ugu halista badnaa. Wuxuu markaan doonayaa in uu degdeg kusoo qaato box yaalla dhanka shootarka, balse way u suurtagelaysaa. Wax ayuu gacanta ku xiranayaa ka difaacaya xabadda. Uu doonayo in markaan baabuurka uu ka dhigo neutral, laakiin Eric ayaan waxba kala socon qorshaha saaxiibadii. Tada ayaa wuxuu amar ku bixinayaa Jory iyo Karen inay isdiyaariyaan. Tada wuxuu degdeg ku galayaa gaariga si uu gaariga geerka ugu saaro. Markan waa uu ku guuleysanayaa Tada, balse gacantay markale xabad kaga dhacaysaa, dib ayuuna usoo dhacayaa. Jody iyo Karen waxay ku adkaanaysaa inay gaariga celiyaan. Jody ayaa u dhacaysa gadaal. Jody waxay halis ugu jirtaa in ay dhimato, balse shootarku waa uu la waayaa nasiib wanaag. Maadaama taayirkii la bedelay aanan lagu xirin, waa uu dhacayaa, sidaasna gaari ayaa ku istaagaya. Karen ayaa waxay ogaanaysaa Jory inay haysato fursad ay halkan ku imaan karto maadaama uu shootarku cabaysanayo qoriga. Balse Eric oo isagana isku dayay inuu baxsado ay xabadda lugta kaga dhacaysaa, halkan waxay ku badbaadaysaa Jody. Daawade, waan ka xumahay inaan kaasoo dhex galo filimka, balse xaqiiqada ay waxay tahay waxaan u gudbi doonaa qaybta labaad ee filimka. Intaas waxaa ku eg qaybta koobaad ee filimka. Waxaan kugula challenge garaysanayaa qodobadan. Haddii aad samaysana, waxaan soo gelin doonaa qaybta labaad. Ugu horreyn, waxaan doonaynaa 20 qof kaliya oo kala duwan oo soo qorto. Waxaan doonaynaa qaybta labaad ama kaliya soo qorto We Need Part 2. Tan labaad, haddii aad tahay qof nagu cusub, subscribe saar channelka, isla markaasna gambalelka furo si aad u noqoto qof ugu horreeya muuqaalka markaan soo gelin Part 2 daawada. Wax aad u muhiim ah inaad saarto like si muuqaalkeena u gaaro daawadayaal badan. Assalaamu calaykum.